dhowr sano ka hor ma aadan ahayn kanaad maanta tahay. Waad iska qalbi fiicnayd, dadka oo dhammina way kula wanaagsanaayeen. Ma aadan qabin wax buufisa, bacduna kama imid ahayn dabeecadahaaga. Ma aadan deganayn, si digtoonidu way kugu yarayd. Samaanta ayaa ahayd diiwaanka keliya ee xiskaaga ku daabacan. Qofna xumaan kama aad fili jirin ilaa aad ka aragto. Sideedaba xumaanta ma aadan xisaabsan jirin. Ilowshiyo iyo saamaxaad kay ka ahayd ma kala saari karaysid. Waxaa runa inaadan ka fikiri jirin, afkaaga iyo uurkaagu ma kala duwanaan jirin. Waxa aad ku faraxdo iyo waxa aad ka cadhooto kala si baad uga falcelin jirtay. Ma dhici jirin adigoo xanaaqsan inaad qosol been ah tisho. Wixii aad diido waad ka dagaalami jirtay, wixii aad doonaysana waad u hagarbixi jirtay. Waxaad ahayd qof isle, waxaad ahayd qof nool si dabiici ah oo quman, qof ka mid ah dabeecadaha iyo abuurka san ee koonka. Waxaad ka gaalowday nacaybka, waxaana diin ku ahaa jacaylka. Xiqdiga waad ka marnayd oo xaqiiq waad laab xaadhnayd. Saaxiibtinimada iyo walaalnimada aad baad u tixgelin jirtay. Iskaashiga, waxbixinta, isdabantaabinta iyo istaageeriddu waxay ahaayeen dhaqankaaga. Keli cunka ma aadan aqoon, waxtarkaaga ma aad lacagayn jirin. Lacagtuna kulama ay lahayn qiimaheeda mid ka badan. Tan waxaad u taqaanay midda guud. Waxaad aaminsanayd inay dantaadu qayb aad u yar ka tahay midda guud. Haddii ta guud hagaagtana ay taadu hagaagayso. Waxaad ahayd bulshay u nool oo u fakera si bulsheed. Waxaad aaminsanayd dawlad wanaagu inuusan ahayn riyo qurux badan oo keliya buugaagta ku qoran, balse uu yahay hawl adag oo nafurnimo, waqti iyo aragti u baahan. Waxaad ahayd qof afkaartiisa ku adag, rumaysanna in mar kasta oo loo dhabar adaygo ka dhabaynta mabaadi'da iyo qiyamka ay aragtiyaha aad xambaarsan tahay u taagan yihiin. Waxa qalbigaaga buuxiyey jacayl aad u qabtay in dalkaagu yeesho jihayn fikir, bulshaduna ku kulanto aragti ka weyn danta qofeed iyo danabeeneedka reeraha. Waxaad noqotay nin xisbi. Waxaad xisbinimada u arkaysay gaadiid bulshada lagaga rari karo xeegaamaysiga qabiil iyo xaalufka aragtiyeed. Wixii kula saxan waad ku bogaadin jirtay xisbigaaga, wixii kula silanna si daacad ah ayaa u dhaliili jirtay, adigoo u haystay inay dhaliishu toosin tahay ee aanay colaadin lahayn. Laakiin muddo kadib waxaad ogaatay inay qaadheen inayihii aragtiyeed ee aad beeris lahayd. Waxaad ku dhowdahay inaad ka quusato xisbi dambe iyo xisbinimada. Sidoo kale garan maysid wixii kale ee xal noqon lahaa. Waxaad garaysatay inay jiraan dad badan oo sidaada oo kale u hanweynaa in hanaanka xisbiyada wax lagu hagaajiyo, balse ay hanjabiyeen siyaasiyiin indhowgarad ah oo xisbiyada u haysta gaadiid ay dantooda gaarka ah ee dhiigmiirashada shacabka ugu safraan. Waxaad yaqiinsatay inay dhallinyaradu u diyaarsan yihiin xisbiyo afkaareed, balse ay xagaldaacinayaan xinjir faratadu. waxaa kuu muuqda xigtii aad maalmihii adkaa mabda' wadaagta ahaydeen oo kaa soo dhowaystay mabda' laawayaal macaan jecela. waxaad toos ugu jeedaa kuwii aad shalay diidanaydeen oo ay la jaaleen kuwii shalay kula diidanaa. niyad xumada ku haysaa kuma koobna keliya xisbiyada, waxa uu kaa gaadhay halkii ugu sarraysay oo ah in shaki kaa galo in aragtiyaha waaweyn ee qiyamka ku dhisani badbaadin karaan bulshada. waxaad daawanaysaa riyooyinka oo lagu ciyaarayo iyo rajadii oo kaasii libdhaysa. waxyaabahan isbiirbiirsaday waxay kugu dhoweeyeen xadka quusta. waxaad in yar u jirtaa inaad ka tanaasusho caalamka aragtiyaha, adiga oo mararka qaar dareemaya inaad si tartiib ah u sii quusayso caalamka dhowrta iyo dheefta. waad isgiijinaysaa sees celcelinta, waad ka sii daalaysaa, weli waad hamiyeysaa si rajo badani kuguma hadhin. markaad dib u jalleecdo jidkii dheeraa ee aad soo jeexday, waxaad jeedaalinaysaa inaan isbeddelku adiga kugu dhicin ama kaa iman ee uu yahay mid ka turjumaya isbeddelka ballaadhan ee ku dhacay duntii aadminimada. dunidu waxay noqotay mid walaxawday oo ruux ahaan u qallashay. qofku waxa uu maanta la qiima yahay agabka iyo huga uu sito, haynta iyo heerkiisa dhaqaale. marar badan baa qofka iyo alaabta suuqa taalla ay alaabtu qaalisan tahay. waa halka ay noloshaada falsafadu ka soo galayso. adiga oo aan ku baraarugsanayn waxaad arkaysaa wixii uu Nietzsche ka digayay inay dhacayaan. marka Ilaahay dhinto, dadkuna ay ka tagaan halbeegga akhlaaqeed oo ka sarreeya danahooda aan xadka lahayn, waxaan caad kaa saarnayn in aanay maanta dunida ka jirin saxda iyo khaladka wax lagu halbeegaa, inaanu jirin farqi u dhaxeeya beenta iyo runtu, in wanaaggii noqday doorasho ay in aad u yari sameeyaan halkii uu waajib ka noqon lahaa. marar badan ayaad la kulantay hungo daacadnimadaadu sabab noqotay. adiga daacadnimadaadii hore waxay ku dhalatay adiga oo aan waxba isweydiin. waxay ahayd mid dabiici ah, laakiin markii aad la kulantay dad badan oo damiirku meyd yahay, aragtayna in ruuxdii bulshadu dhimatay,
waxaad xaqiiqsatay in wanaaggaagu ahayn mid wadareed. waxaad u jeedaa in wanaaggaagii loo adeegsaday sidii jaranjaro oo boodhka lagugu dhaafay. waxaad ogaatay inaan dadku wanaaggaaga u arkaynin muraayad ay isku daawadaan, balse ay u arkayaan qalab ay ku gaadhaan danahooda. waxaa kaa cadhaysiiyey inaanay kuu arkaynin mid iyaga caawinaya, balse ay kuu malaynayaan inay kaa caqli badiyeen. nafsad ahaan tani aad bay kuu dhaawacday. waxaad bilowday inaad ku wareerto falkaaga iyo falcelintooda midka khaldan. waa taas naftaadu marar badan kula hadashay. waa taa kugu soo noqnoqotay iyada oo kugu leh dunidan la bahaloobay. sida keliya ee aad ku sii dhex joogi kartaa waa inaad adna bahalowdid. nasiib wanaag, naftaadii waad ka adkaatay. shakigaasina ma uu dilin shakhsiyaddaadii wanaagsanayd, balse waxa uu kaa qaaday dhayalsigii iyo in mar dambe lagu sahashado. waxaad baratay inaad fiirsi u yeelato qof kasta oo kugu soo dhowaada, adiga oo weli qalbi furan si maskax ahaan u feejigan.